VIPdii dad la iga siiyay waa xanaaqsanahay caawo boosteeye salaada iga siisay waa cambaareynaya qofka VIPdii wata iridan kula booda irid السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دقائق الهاتين ملك استدون كاك جوتان واحد لنا السود وهذا مقالك الله يقريه وشير قريه ولا بدأ أصحابتي هذا سو كلا وحي فكري عرفتيات naga qabto ama muuqaalkan ka qabto xaq oo san ugu soo kale waxa ka codsanaa hadaad YouTube ku cusubtahay ama kanaalka ku cusubtahay inaad iyana subscribe noo saarto oo aad nagu dhiirigeliso subscribe ta because of more subscribe saarto oo more anagu farxayno Soomaad garan ka farxay walaalka okay sidaad muuqaalka title-ka iyo sawirka xaq hore yaala soo aragteen waxaan rabaa maanta inaan ka wada hadalno insha Allah aad ilaahay waqtigeena suuragal ka dhigo show aad weyn oo ka dhacay dalkaasi Mareykanka gaar ahaan Ohio Columbus oo showgaasi qabsoomay habeen aad sii horeysay oo aan fogeyn laakiin weekend dhexdiisa ahayd laakiin showgaasi saameyn badan ayuu baraha bulshada ku yeeshay anoo kamaan soo hadal muuqaalka maan soo diyaarin runtii showgaasi waxa qayb ka ahaa ilka case rapperka weyn ee Soomaaliyeed waxa weeyaan runtii aan ilaahda king of rap weeye runtii marka laga hadlo oo in la saasiin qofka intiisa waa loo qiraa ma jiro rapka Soomaali idil keed kaga daba dhufta oo rap ku haysta isaga ilka case ma jiro haba yaraatee showgaasi ama bandhig faneedkaasi hadalhayn badan buu dhaliyay sababtoo hadalhaynta badan u dhaliyay waxa weeyaan sawir ama muuqaal waxa baraha bulshada ku faafay isagoo gabadh iska furfuraya oo runtii gabadh ay ku dhagan tahay xitaa Ivan waxay gaadhay ilaa Nicmo Joker arrinka markaasi la keeno intuu gabadhii iska furfuray uu sa iskaga gundiyay ayuu xaaskiisii oo meesha taagan goobta soo qabsaday markaas uu agtiisa keenay arrinkaasi ayaan rabaa ama fuliyogaasi inaad la soo daawataan inaguna bal wixii tala iyo tusaale iyo wixii fikir aynu ku darsano bal muuqaalka markuu koobaad ay gula nasta asxaabay waa kan VIPdii dad la iga siiyay waa xanaaqsanahay caawo boosteeye salaada iga siisay waa cambaareynaya qofka VIPdii wata iridan kula booda irid okay wad daawatay ma filaya runtii wad ka dharagsantiin waxa laga yaabaa inaad hore u daawateen waxaana laga yaabaa inuu isla imika uu muuqaalku ku cusub yahay hadaba maxay tahay sababta loo hadalhaya runtii waxaan hadalhayna muuqaalku u yeeshay ama videogani ama clipkan uu hadalhayn badan u yeeshay heer xitaa waxa la gaaray ay ka soo hadasho runtii yani ilaahdee Nicmo Joker oo gabadhaasi runtii ku dhagtay oo adigu markaas jawaab ku siisay hadaba maxaynu ka aaminsanahay inuu walka casaqays sidoo kale gabadhaasi maxaynu tala u haynaa sidoo kale dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed ee iyagu laftoodu stage-yada ama show-yada qabsada ee runtii iyagoo reera iyo xaasasle dumarka isku dhirijiya arrinkaana maxaynu ka leenahay waxaan ku horeynaynaa arinta ilka case marunba ma yani run dhigayso ma ku raacsanay mise waynu ka soo horjeednaa inuu runtii gabadha iska furfuro oo runtii uu si kulul waliba oo adigu dagaal aad moodo dagaal ku jiro oo iskaga furfuro taamiyeen ku raacsanahay mise kuma raacsanin horta marka aynu ka hadlayno raaligelinta xaaskiisa Nicmo Joker inuu raaligeliyo taw ku saxan yahay laakiin haddana markaynu dhan kale ka eegno inuu haddana raaligelinta dhanka taageerihiisa ama faniskiisa inuu qanciyo taana uu ku khaldan yahay qasamaha qofku hadduu kugu dhago ama runtii uu jeclaysto inuu agtaada ka soo muuqdo inuu ku jecel yahay uu danka leeyahay ama uu ku danaynayo ama inaad runtii uu adiga dan khaas ka leeyahay ma taageeranimadu waxa ka mugaymaysan badan tahay arrimaha kale ee soo hoos yaaca sida xiriirada jacaylka waxyaalaha kale danaynta khaaska ah shakhsiyaadkiisa inuu qofkan doonayo
qofku markuu taageero ku yahay waxa fiican inaad dhiirigeliso runtii aad sawir la gasho oo runtii aad ka soo ag muuqato oo aad qanciso because of isagaad wax ku tahay runta markaad ka hadalno in qofku qof wuxuu ku yahay waa dadka isaga xiiseeya ee taageera ee runtii furiyoodiisa iyo muuqaaladiisa iyo heesiisa ku xiran ayaad qof ku tahay even haddii aanay dadkan ku taageereen oo aanay ku garab taagnin taa micnaheedu waxa weeyaan ma tihid qof jira markaasi soo ma marka in la raali geliyo oo runtii la iraahdo qofka taageerahaaga ama fanskaaga inaad raali geliso oo aad xitaa mudanka siiso mar walba xaaskaaga iyo runtii taageerahaaga waxa mudnaanta la qofka taageerahaaga sababtoo ah wuxuu mudnaan ku yahay u leeyahay isagaad wax ku tahay xaaskaaga waa xaaskaagii xalaashahay taas idima bedelayso oo qasab ma aha inay iyadu maseerto waa because of waxa kugu gashay social media aad ku jirtaan in fanaana tahay 200 oo kun oo qof baa ku taageeraya ku daawanaya kula soo xiriiraya waxyaalaha qaar ka codsanaya inaad hees u qaato inaad la kulanto inaad sawir la gasho waxa soo dhamay ka codsanayaan marka taxaas halka aynu dhigno marka mudnaanta koobaad waxa le qofka taageeraha ee aad runtii adiga ku taageeray tacabka ku galiyo waqtiga ku galiyo mudnaanta koobaad leh xaaskaaga waxa xaaskaaga cidi bedelmayso gurigaaga la joogtaa 24 hours la seexataa la ciyaartaa la kaftantaa waqti la qaadataa marka inta yaree taageernimadu ama qofka faniska aad u tahay ama qofka faniska ku ah uu garabkaaga ka soo muuqdo qasab ma aha inaad iska fogeyso iska erido iska caadiso anu taa horta waa ku dhaleelay sidoo kale Nicmo Joker arrinkan ah inay gabadhan caayayso iyo inay gabadhan aflagaadeynayso taana anigu horta basheegi karo muuqaalkan waan daawaday waa muuqaal runtii kaftan ku dheehan yahay ama dawada ogsoontiin almost Nicmo Joker way kaftantaa waqtiga ugu badan runtii social media isticmaasho waxa ku soo gashaa qaab fan ah qaab runtii ay dad la xaraabaysanayso qaab ay dad runtii la kaftamayso marka inaan waxba horta inagu programka ama mawduuca bedelin almost ma jeclay muuqaalkayga inaan ku dheeraado laakiin ujeedka ugu weyn ee muuqaalkan uga hadlaya waxa weeyaan baraha bulshada aad buu qabsaday muuqaalkan soo kale ninkan ilka casaqays show aad qurux badan ama bandhig faneed aad u fiican oo heer sare qaab qurux badan loo soo agaasimay ayaa runtii uu markaasi u qabsoomay waana legend anigu ka dambeeya fankiisa iyo raabkiisa waa shakhsiyaadkan ka dambeeyo ee runtii aan sidhaahdo mala fan rap hadii ay noqoto waa king of rap Soomaali dhexdeeda soo ma garan bajale muuqaalkayga ku dheeraado aad bad maasantiin tan iyo muuqaalka iyo muuqaalku waxayna ku kulano waxaan kaga tagay halkaan maray hadii soo gaadheen kanaalka subscribe noo saartaan muuqaalka noo like gareysaan oo share gareysaan la wadaagtaan saxaabtada waxaan leeyahay YouTube-ka inaad subscribe saartaan aad bay muhiim u tahay